xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed iyo maamulka degmada Hodan oo uu horkacaya gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhagajoon ayaa booqday dhul qabuuraha oo ay ku aasan yihiin marxuumiin uu ka mid yahay Allah u naxariisto madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya marxuun Cabdirashiid Cali Sharmaake. booqashadan mas'uuliyiintan ay ku tageen goobtani qabuuraha ayaa la xiriirta kadib muran maalmihii dambe sheegayay in dad ganacsato ay ku tagrifayaan dhulkaasi qabuuraha ah. hase ahaatee gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhagajoon oo warbaahinta la hadlay ayaa sharxay waxaan ku suganahay qabuuraha qaranka ama qabuuraha Cabdirashiid madaxweyne hore Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdullaahi Ciise ay ku aasayiin iyo ummad badan oo Soomaaliyeed Allah u wada naxariisto. dhowr maalin ka hor ayaan halkan iskugu imaanay shaqada inaan ka bilaawno dhammaan xildhibaanada shaqadii wanaagsaneed ee bilawnay ee ahayd meeshan qashin qub ka noqotay qaraxyada la hor dhigo dadka alkuliisiyaasha oo imaadaan calaqa lagu cabo inaan sida ay tahay ka bedelno wajigaan ka bedelno waji qurux badan aan u yeelno ayaa waxa dhacday dad wax magarata ah inay waxyaabaha si kala u fasireen laakiin markasta ummadda wanaaga ka shaqeynaysa waxaa jiraya dad carqaladeynayo oo dhibaato iyo waxyaabo aysan mudnayn ku sameynaya laakiin dadka Soomaaliyeed oo wax garadka wax fahmaya waa ay dareemi karaan qabuuro madaxa qaran iyo ummad Soomaaliyeed ku aasan tahay inaan sina loo isticmaali karin oo barayfad ah oo ay yihiin qabuuro qaran annaga ujeedadana waxay isxilqaan inaan wax ku hagaajino ku dhisno darbigan aad arkaysaan oo dheer ilaa darbiga dhankasta u soo wareegsanaya la dhisaa qabuuri qaranka magaca lagu qoraa calanka Soomaaliya lagu sawiraa maadaama madaxa qaran ay ku aasan tahay si aad la socotaan saxaafadan aad ka arki doontaan dhexdeeda waa meel qashin qub ah qabuuraha dhexdooda oo markii kaamiradu ay dhex qaado aad la yaabi doontaan waxaad ku arki doontaan meelo buushasha oo ay ka dhex samaysteen qabuuraha dhexdooda kuwa alkuliisiyaalka ah maalin walba meeshan foodo ka sameynaya maalmihii shaqadu halkan ka socotay dadka foodo sameeyay dhammaantood waxay ahaayeen dad oo dadka alkuliisiyaasha ahay oo meeshan habeenkii xashiishkii wax la midka ku cabi jiray waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan waxaasuna aysan dhici doonin annaga ka maamul ahaan warqadda madaxda dhan ee ogeysiinta ku lahayd oo gudoomiyaha gobolka iyo xeer ilaalinta ay nagu soo socodsiiyeen ka maamul ahaan inaan ka saacidno wixii karaanka iyo amniga iyo shaqadu si u soco lahayd ilaa hadda doorkeena ka qaadanaynaa ilaa ay ka dhamaatana waa daba taagnaanayna hadii la yiraahdo markii la dhameeyana xaaladda qabuuraan isee ku sugnaadaan markasta cidii degmadan dawladda iyo gobolka mas'uulka ah mas'uuliyadda ka saaran mas'uuliyaddaas aan iska saari doonaa hadii la yiraahdo xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise Runsheeg iyo xildhibaan Cabdicasiis Maxamed Maxamuud Qandi oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay ka soo horjeedo in dhulkani si qalad ah loogu tagrifalo isla markaana aysan waxba ka jirin wararka la xiriira in goobtani qabuuraha ah ay dad ganacsato gacanta ku dhigeen anaga oo ku hadlayna magaca eheladii iyo qaraabadii marxuumiintii meeshan lagu duugay ee qaranka sida madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo madaxdii kale ee qaranka gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Mukhtaar Cabdullaahi Ciise oo ahaa ra'iisul wasaarihii wasaayada Soomaaliya dad kale oo badan oo Soomaaliyeed oo muslima oo madax ahaa oo meeshan ku duugan oo karaamo iyo sharaf mudnaa iyo ducooyin loo qabto waxaanu aragnay qabuurihii oo dayacan oo aad iyo aad qashin lagu qubaayo oo dadka ammaan darrada ka shaqeeya ay ka dhigteen hooy oo aad ogtihiin in laga helay meydad dad kaliya lagala baxay oo juqda lagu waxyeeleeyay meesha juqda ay keenta dalabkii aanu samaynay ee aanu ka dalbanay madaxda qaranka iyada oo degdegna kaga soo jawaabay ayaa waxaanu bilownay in halkan oo ah qashin qub qabuuro qashin qub isu rogay in qashinkii laga qaado la nadiifiyo dabadeedna gidaarkii weynaa la soo wareejiyo ganjeel lagu xiro markaa kadib ayaa dad ujeeddo guracan leh ee Facebook isticmaalaya ee raba inay ummadda Soomaaliyeed kiciyaan ee been abuur ku shaqeynaya ayaa waxay sameeyeen inay yiraahdeen qabuurihi ayaa la kala gatay waxaan leenahay qof kasta oo muslim oo wax garanaya inay suurtagal ahayn waa la ogyahay arrintaas waxaanu maanta halkan rabnaa inaanu ka cadayno in qabuuraha la hagaajinayo ee gidaarkoodii lagu wareejinayo weynaa lagu ilaalin lahaa
markaa kadibna loo samaynayo iyada oo la maamuusayo oo aad iyo aad loo qurxinayo gidaarka lagu wareejinayo laguna qorayo qabuuraha qaranka dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay yaan la idinku marin habaabin madaxda inoo joogta waa uga mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada madaxweynaha qaranka oo runtii isaguna kiiskan aad ula socda intaba waxaan uga mahad celinaynaa in wanaagii iyo quruxdii iyo sharaftii ay iyagoo nool dalkan u galeen in iyagoo dhintay loo galo in la garto oo runtii shaqada quruxda badan la qabto waa shaqo ay ahayd waqti hore in la qabto hase ahaatee duruufo badan oo waqtiga xeernaa ay sababi waayeen haatan se laga fursan waayey in shaqadii siday ahayd loo qabto shaqo qurux badan baa socota wanaag baa socda maxaa la yiraahdaa ku tirkuteenta iyo dacaayadaha iyo saska dadka lagu ridaayo oo la leeyahay xawaalihii baa la kala gadanayaa iyo xawaali baa la baalkaynaya iyo dad baa la baxaya meydada waxba kama jiraan waxa weeye waa dad awalba shaqo gaar ah halkan ka haystay waa dadkii khamrada gadi jiray oo khamriya cabada halkan ay isugu soo ururin jiray waa dadkii dadka qalan jiray nin kasta oo afkiisa waxa laga maqlo danta uu leeyahay wax kale ma aha ee waa inuu caruurihii meeshaan lagu qalqashay dib loogu sii wadu rabaa waxaan qabnaa in runtii dawladdu ay aad ugu feejignaato in dadkaas maxkamad lala aado oo qof kasta oo propaganda noocaas fidinaya isagoo amniga qaranka waxyeelaynaya waxaan isleenahay Facebook buu ka hadlayaan looga harin laga daba tago hadda shaqada socota oo aad arkaysaan waa shaqo dadaal qoyskii ka timi qoyskii waa aragtaan way taagan yihiin runtii meelo badanna soo martay xeer ilaalinta gobolka ilaa degmada ay timi aadna aan uga mahad celinayno gudoomiye Cumar Finish iyo gudoomiye Cabdixakiin shaqada dhabta ah ee isxilqaamka u badan ay hayaan oo ay garteen in wixii qoysku gartay in ay ku garab istaagaan oo la qabtaan runtii waa ka mahad celinaynaa Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.